أنا الصومال هذا هاي مشكلة أنا أقول على الحياة فهم كدولة منتك أيام مشكلة أنا قبضته محايا له هب كدولة منتك اللي ما فاهمين لو ما نديارين دولة إلى دولة تا أو ضدكوا أي دولة دليلين ودولة بالشيء أي ضد كتاب وعلى فهمي أو لا قبل فعلا دولة إلى ضد كلامها أيها ضد كإسكاله سيربطي كييري يا جريساس دولة ضد كوش قيسا ومثلا هذا مثلا أبي جينا لبحية عافماتك وكذا سوقه عافماتك ده بالحاجة العاقة يستا وأيوة عروض هذا إزداوين كره ودخاتير تبرايفت كوش قيستا إسبتالة جار كإسكاله meelaha ciyaadaadka ama kaliinada tay kara oo lacag iska bixin kara oo isdaaweyn kara way ku mahadsan yihiin maxaa yeelay isdaaweyntaasi waa muwaadin Soomaaliyeed oo inaan daaweyno laynaga rabay oo inaga kafaala qaaday oo yiri anigu ana isdaaweynaaye bal inta kale isdaaweyn kari wuxuu raadiya qayb ay naga dhacday marka qayb waxa jirta markaan isdaaweyn karin qaybtaan isdaaweyn karin waxay u baahan yihiin adeeg caafimaad in loo sameeyo adeeg caafimaad yaa u sameeynaayo dawladda u sameynaysa oo dawladda xagee uga sameeyay xagee uga keenay inta maanta wax isku dardarno oo waliba wax yar yar hadii bulshada loo qaybiyo inta ku aadaysa qofkiiba wax yar ku soo aadaysa intaas inta la isu geeyo ayaa dib waxa loogu celinayaa intana aan caafimaadaan kaligood isdaaweyn karin ayaan wada daaweynayna yaa daaweeyay dadkaas marka bulshada daawaysi dawladdu maxay u qabatay dawladdu dadkii wixii ay ka soo urursay isu geegeysay ayay dib ugu soo celisay hadii saal la helo ruux jirina lama arkeen qof tacbaan oo sina lama arkeen culays dadku ay dareemi lahaayeen lama arkeen laakiin goorma arrintu xumaanaysa dadka wixii laga soo aruuriyo ama laga soo qaado hadii ayna dadka dib ugu soo noqonaynin maxay yakaanaysaa meeshan xoolaha lagu urursadaa masaasa ahaa qof walba wuxuu hanqaltaagaya marka suwaasna markiisa u urursan lahaa marka weligeed horumar lama gaaraayo laakiin markii loo fahmo inay tahay meeshan adeeg dadka loo qabanayo mar kalena waan sheegay madaxweynaha ugu horeeyay Soomaaliya aadan cad Allah naxariistay markii doorashada uu galay waa madaxweynaha ugu horeeyay Afrika doorashada intii laga helay si nabadgelyo ku wareejiya taariikh ay loo gashay dad awal waxay dhan laayish ma bixisid oo kuwan wax dooranaya ma lacag siisid sid aad u heshid markaas hada taariikhda gal wuxuu ku yiri madaxweynenimadu waa adeeg dadka loo adeegayo macnaheedu waxa ay dadkii ayaa waxay ku ogolyihiin inaad u shaqayso hadday dadku rabaan inaan u shaqeeyana hay doorteen hadday iga maarmaan oo inaan shaqadayda ay rabina aanu ku qasbi maayo lacagna ku bixin maayo hay daayeen firmi madaxweynenimadu iyo maamulku waa adeeg dadka loo qabanayo hadday dadku soo wada fahmaan ruux ku ordi lahaa ma jirto laakiin mushkiladda ugu dhacday waxay tahay fahamkii oo qalloocday wixii meesha jiray oo ay noqotay in ama la isku dulmiyo ama wixii dadka lagu qaato dadkii dib loogu soo celinin dadkii ayna wax ayagu leeyihiin aysan ka dhaadhicin halkaas meesha ka dhacday waxa kale meesha ugu dhacay Soomaaliyeedna orodkeenu ugu badan yahay dad nashaad badan oo firfircoon ayaa leeyahay marka firfircoonaas waxay keentay inaan madaxweynayaal badan aan u baahano oo mid kasta asaga uu rabo inuu madaxweyne noqdo haddii dad qabo oo degan aan ahaan lahayn oo dadku tartiib ay iska yihiin qofkii markaas hawsha haaya يعني انت فراح لو قاادو وقتي markuu dhamaado ama la doorto loogu celiyo ama mid kale la keeno ay qowgaas ahaan lahayd waxaan oo ma dhicin laakiin buuq iyo qaylo iyo surabitaan shakhsi ah ayaa tirada ka batay markaas firfircoonideenu waxay keentay inaan qaboon weyno inaan deg weyno xigmad kale afmaano waxay dhaysaa afmaano xoolaha yar barbara raalaha saad yani qawaadisan oo heshaan waxaa la yiraahdaa إيرين سانك باري إيرين فوق واكن كباريه معناها وحاجة يعني هتوقف ما يجي محاترية ويستقبلين مرة قاكون لكن حريقة الكلمة مال سلو استعماله إن لقطة كلام أما اللهجة كلامنا مالك الله استعماله هذا الله ما يفسره حالي أرجع ولبا أرجعك هذا أرجده كبار أرجده أرجده أيريين أرجده أيبيين habeenkaas riyaas iyo meesha ku badan ay oo urdidu ku badan yihiin istaag waagu ugu bariyaa wax fariisan ma jirto maxay la urdiga caawro u qeynaya afmadaan xunooday
إرن إحسان كبيري إرن وعارف وعارف أقدام سنة لكن هكذا يحب أنت أربعين هرين وايد كل شيء سي ماشي سوق شو أمعاء ولا طورا إحسان مركب محل بحنا مكان عاد به محصورة إحسان صار مو لكن إحسان كمشكلة كتاجنه أفمحات ترى إحسان الحلوية قالنا مدة بدقة مدة وحرت كوناتي كذا انجاري بالعالم كدان سو دين waxa way gabdho marka la yiraahdo gashaantada marka ciyaasaantu waa gashaanti waa dhadig moogtahay laakiin afmaaymaaygu orgiga waxa la dhahaa ciyaasaan orgiga ciyaasaan marka irin ciyaasaan ka bawdi arigu orgi ku batay inuu rooga waa kan ka bariya suuta taagaya iyagu ugu bariya Soomaaliya marka maxay nagu dhacay ciyaasaan ka nagu batay marka marka inuu istaag waa inuu ugu bari maadiida waxaan baadnaa marka orgidina la hadalno oo aan walaalayaal wada bisuu u dago waxay inaan dhaxno marka dadkii waa dagi laayihiin qofka siinaa soo madaxweyne noqdo haduu rabo dadkii waxa waaye way rafaadayaan marka bal aan fursadiisa siino aan si tartiib ah oo qabow ummadu dagaal way soo maraan waa la isdagaalaa laakiin ummadda dagaalka waa inuu dhamaado dadku waa inay heshiiyaan laakiin daan dhaanuun ha iska socdo ilaa intee buu soconayaa meel ku dhamaado lama yaqaano hayna iska wadnaan hayaan iska wadna le haddii la iska wado waxaas war ma ah maxaa yeelay dagaal waa la dagaalamay waqti dheer weliba la dagaalamay haddana natiijo waxaa soo baxdaya qolo la dhameeyeyna ma jirto dad maxay ahayd gurigiisa laga qaatayna ma jirto qolada meesha Ilaahay ku abuuray ayadun baa joogta marka walaaltinimo hadii lagu wada joogo waa sida ugu fiican hadii laakiin xoog iyo qaylo iyo rafaad ay noqoto cid walba way dhibtoonaysaa Ilaahay wuu ogyahay qofkan inuu daalim yahay laakiin dadweynihii ma oga qofkan qalbigiisana ma ogo wuxuu yahay xaqiiqadiisa gudahana ma ogo waxa laga yaabaa isagoo daalim ah oo dulmi samaynaya inay dadku ka indhabeelaan dulmiga uu sameeynayo oo ay saas ku jeclaadaan oo idaanin haliyaa noo soo baxay oo muxuu sameeyay hadii wuxuu sameeyay la fiiriyo waa dulmi laakiin dadka dulmiga ma arkayaan waa nin fiican hay muxuu ku fiican yahay asaga waxa laga yaabaa maanta inuu ka sii jeedo bas maanta asaga kuma soo jeedo daalimku laakiin meel kale dulminayo uu ku sii jeedaa maalinta asaga uu ka sii jeedo uu taageersan yahay maalintaas haddii la qabto la dilo oo uu dhinta kaas haddii la qabto kii uu ka sii jeeday ee agtaagnaaya aan dulmigiisa arkaynin wuu ku fidnoobayaa oo wuxuu arkayaa halyey uu soo baxay oo la laqmiyey oo markii la qabtay ilaahay wuu sugaa marka in Allah la yumli lidaalim hor lagama qabanayo waa loo sugaa hor ma laga qabto ilaahay uu qaban karaa ma la qabto lama qabanayo waa loo sugaa daalimkii kooxda uu sii dulminaayay uu ka soo jeesana kii agtaagnaa ee maalintii hore u sacbinaya lahaa halyey ay soo baxay ayuu ku soo jeesana dulmiga dadka kale uu ku hayay xanuunkii ayuu dhadhansiina qofkii markaas uu baraaruga warkan muxuu ahaan lahaa waa kii dadka dulminayo quraani saan uu maleynayni adiin buu ka maqnaa waxay balaayoontaadi ka maqan tahay buu waraaka ay ku maqan tahay marka balaayo waa inaan loo ogolaanin inay buu kale ku maqnaato haddaad ogolaato inay meel kale ku maqnaato waxay ogaataa adna maalinka un bay kugu soo maqnaani dagaaladii waqooyiga bari dhaanay 88 oo qaxitaankii iyo sii bilaabanayay arday soo bedelay oo noogu dhata koonfurta oo wax baranaya jira dhalinyarada iyo ardaydii way isfoorjeen intii xaq uu ka imaaday xaq uu yaani isdhaxgalkii markaas waxay dhigi jireen ardayda qaarkood aan kuwan xabad ayaa keentay xabada ka soo carareen xabadi keenta loo jiray ayuu waxay dhigi jireen xabadi sugte hadana xabada keentay idinka way dhimantay way sugaysiin si lama noqonino saama kala noqon xabadi keenta iyo xabadi sugte wixii ay soo wada qarxay way dhamaatay marka hadda saas oo kale marka isku dhamaato oo cid walba ay wada gaarto marka qofka daalimka marka la qabto dadku maxay dhaayaan ilaahay baa na dhaafiyay marka meeqa idinku taariikh dib u raaca oo maalmihii hore loo sacbinay oo laha ma sha Allah waxba noo soo baxay maalmihii dambana ay noqotay warkan muxuu ah xagu ka soo dhacay maalikuu dhintayna ilaahay baa na dhaafiyay maxaa yeelay qofka daalimka markuu dhinto yastariixu minhu al-ibaad wal bilad dhulkuna uu ka nastaa adoomaha ilaahay ka nastaan
وضمنا دبك يكلم السماء دولكم وكلام السماء الله هو أبوري وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إلا بالحق دولكم حق اللي هو يا الله تعالى إن الله اللي عابده شرعي يسلقوه خير كالله الشقاية وعاص وحكد وقفك كوايا دولك عليس يوكيا مركي لقى قاضي دولك واكس لكن قفك مؤمن كخير كشقاينا ما كو دينتو عرك يبوك وإلهيان ساسا فرعون وحاليه مركي بياه لقو قرقيه فما بكت عليه السماء والأرض عرق بالوحوه فرعون مجلته وعلى غنى العباد والبلاد وكان